wejigii koowaad ee dagaalkii lagu qaaday dalka Iiraan wuxuu egyahay mid ku soo dhammaan doona fashil amaba ku dhammaadayba fashil. Waxaan sidaas u leeyahay Maraykanka iyo Israa'iil ka hor inta aysan Iiraan duqayn waxa ay weerareen dhammaan isgaarsiinta gudaha dalkaas Iiraan, waxaana la jabsaday dhammaan macluumaadkii iyo weliba nadwoogii shirkadaha taleefannada ee dalkaas Iiraan, waxaana loo gudbiyey fariimo taa oo lagu leeyahay caawimaadii way timid, Ameerika ayaa idin soo gaarto oo idin caawinaysa, iyo fariimo kale oo lagu niyad jebinayo ciidamada iyo shacabka reer Iiraan. Laakiin midtaas danta ay ka lahaayeen uma suurtoobin oo ma aysan u socon. Waxaa soo baxay 7 milyan oo qof kuwa u baroor diiqaya dilkii hogaamiyahoodii ugu awoodda badnaa uguna sareeyay dalkaas Iiraan, Khomeini. Waxayna taas ka dhigan tahay halkaasi dhabarjabkii ugu weynaa inuu ka soo gaaray Yahuudda iyo weliba Maraykanka. Wixii intaa ka dambeeyey waxaa jirtay weeraro xooggan oo lagu qaaday gudaha dalka Iiraan. Weeraradaasna waxaa geystay Maraykanka iyo Israa'iil iyo weliba waddamo kale oo naata qaarkoodna isqarinayaan, qaarkoodna ay bannaanka iskeeneen. Waxayna u muuqataa haddeertaan in dagaalka lagula jiro Iiraan uu noqon doono adduunka oo dhan iyo Iiraan. Waddamo badan oo khaliijka ayaa hadda waxa ay wacad ku marayaan inay qayb ka noqonayaan dagaalka. Taasina waxay ka dhigan tahay in Iiraan ay dagaalami doonto ilaa iyo dhibic dhiiga intay ku dambeyso. Dagaalkan waxaa Iiraan looga adkaa karaa oo keliya iyadoo oo la dilo 100 qofood ama ku dhowaad milyan dad ah oo Iiraaniyiin ah, maadaama la doonayo in gabi ahaanba dhulka la dhigo Iiraan markaan. Waayo ujeedku wuxuu yahay dantii koowaad ee laga lahaa ma aysan suurtoobin. Taana waxay dhigan tahay in wejiga labaad loo gudbo dagaalkani. Iiraan waxay xirtay marankii dunidoo dhan ay isugu marayay ganacsiga, kaasi oo ahayd midka isaga gacanta ku hayso. Waxaana shalay digniino ay soo saareen Iiraan iska dhiga tiray dhowr maraakiib oo isku dayay inuu marinkaas soo maraan, laakiin qaarkood waa la duqeeyey, qaarkoodna badda ayaa la hoos geliyey oo waa quuseen. Sidoo kale waxay dhaawac culus gaarsiiyeen maraakiibtii waaweyneed ee Abraham Lincoln iyo midkii kale ee diyaaradaha dagaalka qaadayay, iyaduna dhaawac uu soo gaaray ama dhaawacyeelo ay soo gaartay markabkaasi la xaqiijiyey. Iiraan waxay duqeynteeda gaarsiisay dad waddamo gaaraya 8 waddan, waxaana hadda suuragal ah in dagaalka ay ku soo biiraan waddamo cusub oo hor Allah oo ay Carabta ama khaliijka u badan tahay. Waxay Iiraan taarget ka dhigatay eeraboorada, kaabayaasha dhaqaalaha iyo shidaalka. Waxaase cajiib ah in wasiirka arrimaha dibadda iyo weliba wasiirka gaashaandhigga Iiraan intuba ay warbaahinta la hadleen ayna sheegeen keed saliid ah iyo weliba warshado saliid ah oo Sacuudi Carabiya la weeraray in Iiraan aysan weerarin. Halkaanna waxaa ku gudan far taa oo macnaheedu tahay in dad kale ay ka shaqaysanayaan ama ka adeeganayaan kuna qasbayo khaliijka in dagaalka ay soo galaan ku soo riixayo. Waxaan wada ognahay munaafaqnimada Yahuudda in horena loogu sheegay, Ilaahay subxaanahu watacaala quraankiisa ugu sheegay. Hadda Sacuudiga warshado shidaal oo la weeraray Iiraan way iska bari yeeshay, laakiin Iiraan waxay hulcisay ama ay kantaalo la dhacday caasimado, eerabooro iyo weliba dhammaan saldhigyo ciidamada Maraykanka ay ku lahaayeen bariga dhexe. Hadda waxay u muuqataa Iiraan inay ku gacan sareyso dagaalka, iyadoona kantaalada ugu badan ay la dhacayso gudaha Israa'iil. Waayo Iiraan hadda waxaa ku socda dhiigbax saa'id ah, waxaana loo geysanayaa duqeyn xooggan, iyadoo ay tahay taa midda keliya Iiraan u bannaan in wax alla wixii karaankeeda ama awooddeeda ay samayso. Welina way hanjabayaan oo waxay leeyihiin dagaalka waa bilow. Donald Trump wuxuu durbadiiba ku baaqay wadahadal iyo weliba in la isu yimaado, laakiin Iiraan markaan waxay u muuqataa inay isticmaali doonto dhibicdeeda dhiigga ugu dambeeya. Sheekada ugu xiisaha badan waxay tahay in Iiraan ay hadda iyadu ay taagan tahay meel kala beer ah, meel ay ku laabatana ma jirto, meel ay ka soo laabatana ma jirto. Haddaba wejigii koowaad ee dagaalka wuxuu noqonayaa mid fashil ku dhammaaday oo sida la rabo uu noqon waayey, oo Maraykanka waxay rabeen markii la dilo Khomeini ama Ayatollah Khomeini in
isku dhex yaac ka yimaado dalka, mudaharaadyana inay dhacaan, shacabkana ay bannaanbaxaan, laakiin shacabka waxay la jiraan dowladdooda iyo weliba ciidamadooda. Fikirkaagu waa ii muhiim, hoos noogu reeb. Mahadsanid.